gudoomiyaha gobolka Sool ayaa socdaal ku tagay deegaanada hawdka ee gobolka Sool wuxuuna gudoomiyuhu safarkiisan uu ku maray deegaanadaasi ku saabsanaa xogaal noqoshada xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada koonfurta ee gobolka Sool. deegaanka Qorile oo dhanka koonfureed ka xigtay magaalada Laascaanood ayaa waxa xaaladda abaareed ee deegaankaasi uu gudoomiyaha uga warbixiyay. odayaashii waxgaradkaasi ayaa sheegay in deegaankan ay u baahan yihiin adeegyada aasaasiga ah arrimaha bulshada. gudoomiyaha gobolka oo hogaaminayay dhammaan waa soo dhaweynaynaa waadna mahadsantihiin dhammaan waad mahadsantihiin hadday tahay gudoomiyaha gobolka oo hogaaminayay hay'adda hadday tahay hay'adda soconaysay intaba waa soo dhaweynaynaa waxaanu kula shaqeynaynaa nabadgelyo waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan boqolkiiba boqol khayr allah idin siiyo waad noo timaadeen annaguna waydin ajiibnay sidaasay inoo tahay hay'adda waxaanu doonaynaa wixii kale oo ay nagu xidhi karto inay nagu xidho sidaas inoo ballana anoo ku hadlaya codkayga hore duqan Laascaanood in magaalada hay'addu qabato ay MCH-ka wax ka qabato iskuulka ay wax ka qabato hadday riig keeni karto biyo gelinta magaalada riig ay noo samayso waxyaalo fara badan ay wax ka qabato laakiin haddii waxyaalaha noogu daranin waa MCH-ka iskuulka wax ka qabato iyo riigga saddexda arrimood. gabagabadina gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jeede ayaa ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay isagoo sheegay in il gaar ay ku hayaan dhammaan deegaanada gobolka Sool gaar ahaan deegaanada abaaruhu saameeyeen. wuxuuna gudoomiyuhu sheegay inay hay'adaha deeqaha u wada ay si weyn u soo dhaweeyaan shacabku. runtii waxaan mahad u celinayaa guddiga abaaraha heer qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Siile uu yahay gudoomiye guddigaasi runtii wax badan bay ka qabatay waxay u soo dhiibtay booyad biyo ah booyadaas waxay u dhaamisay tuulooyinka abaaruhu tuulooyinka bilaanta ku jirto dhan ee Laascaanood ku dhow dhan dadka Ilaahay buu wax gaarsiin kara waxay soo bixisay deeq biyo ah oo dhawaan guddiga abaaruhu ay keenteen 50 booyadooda. waxaan kaloo mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo runtii og Qorile wuu og yahay madaxweynuhu si fiican baad markii doorasho socotay oo doorateen cod fiicanna waad siiseen reer Qorile halkan ay ahayd baan maalinay meeshii maalintii iyadana waa mahad celinayaa waxaan idinka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba inaad cid kasto deeq idin wada aad soo dhaweysaan. Maxamuud Aadan Askar Maxamuud Guray SABC TV magaalada Laascaanood.